بسم الله الرحمن الرحيم سوح وناكسن دغيستيال كسو دواده برنامجka howlgal yar marwadahan oo kala soo xalbaad ka dhageysataan idaacada ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed qodobada saakaad maqli doontaan hadii ay baraale ka noqdaan waxa ka mid ah idaacada ciidanku waxay u xil saaran tahay gudbinta macluumaad military oo la hubo baahinta go'aanada iyo bayaanada rasmiga ah ee ciidanka baahinta howlgalada ka hortagga dacaayadaha kooxaha argagixisada kor u qaadida moralka ciidamada qalabka sida iyo ka qaybgalka difaaca amniga midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda كودي لوليو سنة كي لو كن أفري طبنكي أيا الأساسي راديها عندما قلب كسيدة إن أيضا ذلك ومريو إن مقارنة مرحلة أدق أو كسر يسن للدجالن كأرجح سيدة تحصل واحد صوتي إن كودي بيش تدوان لو كن أفري طبنكي إن مركي وجوه الرئيسيبة إن ذلك لجه الجريو إذا عدكو هذا الشيء عدك عندما قلب كسيدة أو FM فكر كذا وحالها مدحوينها الجمهورية هذا التلاذة هي تيرم كيسي هراء دكتور حسن الشيخ محمود انت بدن إذا عدوا إذا علىها ودنك كجرا وحي كهدلاين أما أي تبيناين ورركا قصة ليسن مقارنة سياسة iyo colaadaha jira sidoo kale waxyaabo badan oo waxa laakiin anaga markii la sameeyay idaacada waxay si toos ah u abaartay oo ay dadka ay u jiheysayba arrimaha ciidamada dal waxa lagu difaaca af iyo adin hadii ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ku difaacayo adinka iyo xuduudda hada warbaahinta ciidamada qalabka sida waxa waaye hay'adda ku difaacayso afka taas ayaana ka dhigtay inay muhiim u tahay dalka iyo dadka doorka SNA radio ee difaaca dalka wuxuu yahay kooxaha nabaddiidka ee qori kula dagaalamayaan ayagana waa inay microphone iyo camera kula dagaalamaan xilliga ay ku soo biiray caqabado way iska jireen oo waa laga cabsanahay in ciidan ahaan taba lagu biiro haddana marka ka war tahayba ma ugu sii jirto marka aad familka ama asxaabta oo kale u sheegtid in ciidamada ku biiray sidoo kale cabsi kalina ku muujinayaan laakiin caqabadahaasi hata inay tartiib u soo yaraanayaan ka dumar ahaan ayaga soo raadsado oo meelaha oo laga soo xayeysiiyay ciidan ahaanta marka la qoranayo dumarka iyaga kaalinta koowaad ugu jiro in ay ciidanka soo qortaan ama ay soo dalbadaan ka shaqsi ahaan aad ugu faraxsanahay inaan qarankeyga u adeegayo kamid ahay gabdhaha ciidamada qalabka sida si kaara gabdhaha ka tirsan warbaahinta ciidamada qalabka sida marka waxa isleeyahay waa nasiib dheer tahay gabdhaha kale inaan ahay gabar askariyada si kaara aan uga sii tirsanahay ciidamada SNA radio markii wariyaashu waxay go'aansadeen inay ciidanka la jiraan ee la howlgalaan si ay ummadda Soomaaliyeed ugu soo tabiyaan guulaha ciidanka ay gaarayaan dagaalada ciidanka ay ku jiraan dhulka ay xoreynayaan iyo nolosha saxda ah ee ka jirta goobaha dagaalka inay soo tabiyaan kanina waa mid kamid ah godadkii argagixisada ay ku dhuumaalaysanayeen si ay markaasi gabaad kaga dhigtaan dhamacda kulul ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geesiyadu had iyo jeeraale waa kuwo u taagan badbaadinta dadkooda iyo markaasi ka hortaga dhagaro walba cadow isku dayaan godkan waxay ka qoteen mid kamid ah guryaha dadka rayidka ah si ay markaasi dadka rayidka ama shacabka masaakiinta isugu ekeysiyaan waxaan hortii la dagaalameynaa cadowga Ilaahay waa in caqiidanaga ahaato oo aysan naga ahayn war wax la isku hayo ma aqaan daatira halisaad ku galaysaa dadka la dagaalamay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay yakhruju fi aakhir zamani qawmun ahdath al asnan aakhir zamanku waxa soo bixi doona qowm dhalinyaro ah aqligooda u liito dabaala sufaha ul ahlaam oo ku tilmaam waxay ku qowlayaan qowlka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay leeyahay nabiga yiri ilaahay ku haya yad'uuna ila kitaabillahi wa laysu minhu fi shay'in kitaabka ilaahay sheegana waxna kama haystaan sababtoo kitaab ilaahay nin haysto oo diinta islaamku dhaqmaayo
oo waman yaqtul mu'minan mutacammidan iyo aayaadka kale oo tirada badnaayo dhiigga muslimka ka hadlaaya qof aaminsan xarar dheere ama meel Soomaali joogto ayaan qarax keenay dad ku dili lahay wariyuhu marka uu joogo furinta waa uu ka duwan yahay wariyihii joogay magaalada ama goobaha nabdoon sababtoo ah waxaa laga rabaa inaad saddex shaqo isku xaliso kow meesha nolosha ka jirta nolosha caadiga ah waa nolol dagaal ah askariga meesha jooga inaad nolol noqoto oo aad la noqoto siduu yahay askari difaac ku jira qoriga booshkiisi u diyaarsan xaalad kasta inuu ka jawaabo aad tahay midda labaad waxaa tahay wariye la rabo wixii meesha ka dhacay inaad soo sheegto midda kale waxaa kuu sii dheer in shaqada marka la qabanayo aska tag waad la socotaa waad la rafaayaysaa waad la lugaynaysaa waad la daalaysaa balse marka uu asagu nasanayo adigu ma nasanaysid balse waxaa laga rabaa wixii aad soo qabatay inaad ididgarayso inaad diyaariso inaad baahiso runtii barnaamijyo muhiima ayaa ka baxay idaacadda haddii aan soo qaato howlgal iyo horumar waa howlgallada ciidamada ay fuliyaan guurihii ay gaareen iyo horumarka ay ku tallaabsadeen ciidamada qalabka sida iyo kan dalka oo ku tallaabsada intaba waa uga hadalnaa bismillaahi raxmaani raxiim soo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka howlgal yar marwadahan oo kale soo xalbaad ka dhegaysataan idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed qodobada saakaad maqli doontaan haddii ay baraale ka noqdaan waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku direen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wariyaasha idaacadda ciidamada qalabka sida waxay ka tirsan yihiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed sida ay u dhaawacmaan ee u dhintaan ayagana u dhintaan waxyaabaha aan maskaxdeeda marna iyo laba ka hareyn waxa weeye Allahu naxariistay Cabdinaasir Cabdulla Gacal oo aan bahwadaag si gaar ah shaqada u ahay maadaama aan wariye ahaa inta badan muuqaal duub ay ahaa shaqooyinka marka qaar aan muuqaal duuban laakiin shaqooyinka qaar dhacdo awdhigle ka dhacday oo Allahu naxariistay ku shahiiday warka markii la soo sheegay meeshaas wax ka dhaceen ee dagaal ka socdo wariye Allahu naxariistay geeriyoodo afgooyo joogay ay soo sheegay markuu soo wacay sir wac wariye nin dhintay ayaan wacay telefikiisi nacam inaan war helo oo dhacdada meesha ka dhacday aan raadiyo waxa iiga naxdin badnayd oo maskaxdayda ku gayn in isla geesigii aan meesha ku tabaynay shaqada waday uu meesha ku shahiiday marka isaga iyo rag badan oo saaxiibo ah inay ku dhaawacmeen shaqadan oo furinta ah runtii sidoo kale waxay haatan ay qayb ka tahay howlgalka haatan socda ee loogu magac diray duufaanta aamusan oo runtii ka bilowdaba Shabeellada Hoose oo hadda lagu xoreeyay deegaano badan oo ay ka mid yihiin Sabiib Caanoole ee degmada Oodheyle laguna jiro hadda in meelo kalena ay ciidamadu ay howlgallo badan ay ka qaban doonaan marka furinta xaaladaha ugu adag ka jira weeye kow waxaad raacaysaa waxa laga yaabaa inaad raacdo baabuurka koobaad oo meesha weerarka ku ama baabuurka labaad ama baabuurka saddexaad la socoto ama ciidanka ugu horeeya la socoto inaad soo duubto xaaladda ka jirta halkaas oo ah inaad tusto bulshada shaqo waxaa ka dhici karta in bulshada ay ku daawanayaan si nabdoon oo deganaana oo gurigiisa jiifo laakiin adiga xaaladda aad ka maraysaa waxay tahay inaad internet fiican haysan inaanad xaalad deganaan oo kale haysan inaanad koronto meesha ka jirin oo aad wixii dhan isku tashanayso haddana la rabo in bulshada Soomaaliyeed aad tusto shaqo idaacaddu waxay leedahay baro bulsho oo ma garanaysaa iyo warbaahin casri ah oo kala duwan taasoo fududaysayba in dadweynuhu ay u sahlanaato inay helaan warar iyo barnaamijyo xaqiiqda ku salaysan meelaha aan u marinana waxaa ka mid ah sida Facebooka waxaa ka mid ah YouTube-ka TikTok-ga bartii hore ee Twitter-ka hadda loo yaqaano X ka mid ah waxay leedahay website rasmi ah oo taariikhaha ciidanka iyo wax walba lagala socdo waxay kaloo leedahay live stream oo dadka ku nool dibadaha iyo gobollada dalkaba ay ka dhegeysan karaan runtii sharaf weyn ayay ka soo qaybgalayaasha iyo ummadda Soomaaliyeedba u tahay iyo annagaba inaan maanta shirkan jiraa'id aan halkan uga dhawaaqno qorshe ballaaran oo lagu horumarinayo warbaahinta wasaaradda gaashaandhigga iyo warbaahinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u noqdaan kuwa casri ah xirfad sare leh kuna adeegaya danaha qaranka iyo kor u qaadidda sumcadda ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu dambeyn aan ka hadlo
wasiirkeena gaashaandhigga iyo tiimka wasaaradda gaashaandhigga oo runaantii si gaar ah noo soo xasuustay xarunta communicationka ee wasaaradda gaashaandhigga oo ah meesha ay si wadajir ugu shaqeeyaan tiimka MOD iyo SNA oo ah tiimka wasaaradda gaashaandhigga communicationka iyo tan kuwa ciidanka xoogga dalka oo lagu magac daray walaalkeen ayaan Cabdinaasir Cabdulla Gacal runaantii waxay noo tahay dhiirigelin sababtoo ah waxaan dareemaynaa inaan marnaba nala iloobeynin haddaan dhimanno nala xasuusanayo nagala warqabayo annagana waxaa naga go'an inaan shaqeyno una shaqeyno dalka iyo dadkaba waxa aan u shaqeynayna maahan dana kale maaha waxaan u shaqeynayna waa dalka iyo dadka waa waajibna saaran oo aan gudanayno oo qof walba oo Soomaaliya waa waajib ka saaran dalka iyo dadkiisa xaqayagiina tuutiyay kuwii dilaaciyo dalko xooga dalko xooga dalko dalko xooga dalko xooga dalko Faisal Daa Hussein warbaahinta ciidamada qalabka sida magaalada Baydhabo Saciid Cabdi Faarax idaacadda ciidamada qalabka sida gobolka Baay Saad Maxamed Suufi warbaahinta idaacadda ciidamada qalabka sida gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Daljir warbaahinta ciidamada qalabka sida magaalada Xaraqeere ee koonfurta gobolka Mudug Maxamed Muuse Maxamed warbaahinta codka ciidamada qalabka sida gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Xuseen Nuur warbaahinta codka ciidamada qalabka sida degmada Celeer Maxamed Dayib warbaahinta codka ciidamada qalabka sida Jubbada Hoose Saad Maxamed Suufi idaacadda ciidamada qalabka sida deegaan xeebeedka dhanana ee gobolka Shabeellaha Hoose